gudoomiye waxa jira xisbiga waa xisbiga kulmiye waxa la yiraahdaa laba deegaan ayaa u badan haddana magac gaar ah dadku ugu yeedhaa waa maqashaan maleynaya suurtagal ma tahay in sanadka arinta aad wax ka bedeshaan oo deegaamo kale ay gudoomiyaha iyo musharax iyo waxyaabaha yeeshaan oo saarlooda wali khaladka u badan weydiinaysaa wuxuu xisbi qaran idin leh ha idin ku badan kartaa deegaan uu ku badan karaa gobol uu ku badan karaa magaalo uu ku badan kartaa macnaheedu ma cid kale ma soo gelayso macnaheedu ma cid kale kuma tartami karto xisbiga shirweynihiisa marka la gaaro cid allaaliya cidii ku tartamaysa deegaanka doonta ka soo jeeday daba u diyaar cid laga xidhay ma jirto laakiin haddii cid la si calaamadiyo kale waa lagu tartamayaa laakiin intii uu jirayba isku labada deegaan ba haystay de qofka gudoomiyaha loo wadaana de waa la taageeraa hadii goor wax laga yaabaa in inta la yahay lagu tartamaya haddana uu qof si calaamadsan yahay anigu hadda saacada imkan kula hadlayo qof caalamsan ma garanayo waana calaf oo anigu waxaan aaminsan halka wax ilaahay ku qorcidina inay sheegeen laakiin siyaasadda lafteeda ka mid siyaasadda lafteeda iyo xisbiyada lafteeda ka mid tahay in hogaanka iyo mas'uulka iyo madaxweynaha waqtiga joogo cid baritaaro walaanu ciddaasana arkadan diinteena meel ka dhacmayso diinteena way qabtaa dhaqankeena ma diidayo inuu war ciddaasaan anigu de rayahan qabaa laakiin haddana dadka gacmahooda isagu mare doonuu xulan karaa marka wax mushkilad ay leedahay haddii ku aydan sameeynaynin waliba TV-ga xasaarad meedhan baatiinay ma jirto arinta xisbiga de muddo dheer baadimka laba madaxweyne ayaa wadanka soo bedelay labaduba kulmiye ahaayeen bulsho badan baa leh intii xisbiga kulmiye wadanka talada wadanka hayay waa la si kala qaybsamaya oo bulshadu si kala furfurmaysa adiga ma ku muuqata xataa misadaadu adaan ku weydiin dad halka misada anigu kuma jawaab karo ma jawaab laakiin dareenka shacabku ma ku dareenka shacab ma dhigeysani waxa dhigeysataa dadka maqaxyo wada fadhiistaan maqaxyo laakiin xaq bay u leeyihiin dadka maqaxyo fadhiistaan laakiin xaq bay u leeyihiin in aragtidooda la weydiiyo Soomaaliland kala qaybsantay iyo Soomaaliland waxaan maqli jiray oran jiray berigii hore madaxweyne Dahriyaal wuxuu wareejiyay dal midaysan wuxuu isu sugan yahay imikana waxa madaxweyne Shiilaan wuxuu wareejiyay waxaynu haddana ka baxin hebel baa wareejiyay dal midaysan maalinta ka dambaysa Soomaaliland midnimada waa shaad kaanaysa ma qabo wax kala qaybsanay jiraan laakiin madaxweynaha shalay qirayay in ay jirto xogta ah in Soomaaliland aan la wada lahayn oo de uu maqlay bade oo warbaahinta uu ka maqlay madaxweynaha shalay khudbadiisa ku dirayay in dibtaasi ay jirto maxaa sababaas leedahay in Soomaaliland maanta lama wada laha madaxweyne yiri Soomaaliland lama wada laha ma oran wuxuu yiri xogtaas ay jirto dadka qaar baa sheegay ka taashay soo kala weeyo inta shay soo bulshada ayaa meelaha laga maqlaya Soomaaliland waa la wada leeyahay ciidan laga xigo cid walba ay ku tartamaysaa cid walba talada wax ku leedahay xukuumadda waa loo dheeyahay golaha wakiilada waa loo dheeyahay golaha guurtida waa loo dheeyahay shaqaalaha dawladda waa loo dheeyahay shaqaalaha hoosaadka waa loo dheeyahay ka sare waa loo dheeyahay agaasimeyaasha guud waa loo dheeyahay yaa ka maqan isaga marka waxaan la wada lahayn khayraadkii horumarinta waa loo dheeyahay cusbitaalada waa loo dheeyahay ciidamada waa loo dheeyahay maxaad ka hadlay marka ay sheegada waxa la kala leeyahay bal ha cadayso cidda waxaan ku ololeynaysaa ha cadayso waxa la kala leeyahay maxaa laga hadlaya sheekada siyaasi soo sameeyay oo guul daraystay oo saaqiday oo umadu nacday oo umadu iska fogeysay oo umadu diiday oo kala qaybiyay oo dagaal galiyay oo kadeedo dhan soo umad soo mariyay baa intan umada ka iibiya أنا عندي بتشيله سياسيون ما كان له والشيء السياسي واحد تقريبا سياسيون ما قيمسه لكن تدوينه تولد جوه ولا جدا وهي كل حاجة ورسنا طب أنت عم كل شيء أنت اللي كلا ليه عد كاري هايسته أمر هي كاري هايسته أمر هي جيش هايستان أمر هي بروع هايستان أمر هي بورب هايستان أمر هي لصعب هايستان عد كاري هايسته بليش شيء بيد انتهي إن قبل هذا الدرف يضو أي كسام يريه كوا قبل هذا الحد صالحان وكلا مدحوينه gudoomiye maxkamadda sare wasiirkii maaliyadda taliyihii ciidamada booliiska taliyihii ciidanka qaranka iyo in kale oo badan waxa la deegaamada dhexe darafyadu waxay leeyihiin saamiga ay beesha dhaxaysta uu ka yariya kan anagu aan haysano mid taasmana ku muuqata ma gobolad ka hadlaysa mise beelad ka hadlaysa yani ma gobolad ka hadlaysa mise beelad ka hadlaysa gobolada waxa diga beelo haddii gobol laga hadlayo la leeyahay goboladu way kala miisaan badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay gobolka ugu tog dheer inuu ugu miisaan yahay waxa dawladda kaga jira ugu tireeyay gobolada kale ka wada badan yihiin baan aaminsanahay ya
haddii gobol laga hadlayo gobolka togdheer isku dhan aan aaminsanahay gobolka haday taliyaal ciidamo noqoto haday noqoto wasiiro haday noqoto tiradood haday noqoto laga wasiirada in togdheer ugu badato laga yaabo waa loo kala badan yahay laakiin macnaheedu ma aha togdheer wadankii baa laga sheegtay haddaad ka hadlayso reeraha ayaan ku hadlaya dad reer ka hadlayso beesha dhexe beela kala ka hadlayso xarunta waa lagu kala tira badan yahay isma leeyahay beelana wax ma aynu qaybsan doorasho dhacday doorasho wax lagu qaybsaday jaranada ciidamada cid ka maqan ma jirto deegaan ka maqan ma jiro marka ay tan looma kala badnaa jaranada ciidamada baltiriya qolada ku badan marka doorashada dhacday yaani qaabkii goboladu ay codka kulmiye u kala siiyeen baa loo kala siiyay miya maya looma kala siin waxay ahayd doorashadu markay dhacday xisbiga tartamaan xisbiga in laga soo dhiso cidii dooratay qaabka inuu sanayna taa diidaya waxa la isku qarciyay cidna laga tagay cidii kulmiye codka siisay iyo cidaasina kuma kala badna maanta xukuumadda waxa laga yaabaa marka la isugu yeeyo cidaasina inay ku badato yaa dhici karta qaabka uu madaxweyne Biixi u soo dhisay golihiisa wasiirada iyo